aasaaskiisa uu socday 2008 waxaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad loogu doortay shirweynaha xisbiga kulmiye 2008-2010 waxa uu ka qalin jabiyey kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa 2010 waxa uu noqday gudoomiyaha xisbiga kulmiye kadib markii xisbigu uu ku guuleystay talada dalka xilkaasi oo ilaa iyo hadda hayo xisbiga kulmiye wuxuu ku faa'iideeyay ahaan inuu yahay xisbi dimuqraadi yahay marwalba dimuqraadiyadu hoggaansan shuruucda aan leeyahay iyo go'aamada aan qaadanay waxa ka mid ahaa in marka xilka madaxweynaha uu qabto uu wareejiyo xilka uu wareejiyo cidii ku guuleysata madaxweynaha qofka waxay isku qaban karaan banaanida loo kala xidhiidha ka mid ah أنه قرآن عبرنا وفي صباحي سفر القرآن وحن قرآن عبرنا فالحمد لله إلى حلقي هو يجيو وحن عبرنا ما كانت هذه مرة واحدة وهي وفر إلهي وحن يدعي يفرس ayaa mar labaad gudoomiye loogu doortay shirweynaha xisbiga kulmiye ee ka dhacay Hargeysa 2015kiina waxa shirweynihii golaha dhexe ee kulmiye loogu doortay inuu noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye balyeelaya labada murashax ee xisbigu u doortay tartanka doorashada soo socda waxaan u rajaynayaa hadda waa taqaanaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye موسى بيحي بدني مدى تنتيني وينو ما مراي هو مساعدي